ومناسبة سنة دوكسيات كعصب 2018 ee dugsiga Candlelight ee magaalada Burco ayaa lagu qabtay barxadda hore ee dugsigaasi waxaana munaasabadani goobjoog ahaa mas'uuliyiinta wasaaradda waxbarashada ee gobolka Togdheer Professor Rajanib madaxa hay'adda Candlelight ee gobolka Togdheer mas'uuliyiin ka socotay jaamacadaha Alpha New Generation jaamacadda Burco waalidiin arday iyo sidoo kale marti sharaf kale ugu horeynba waxa halkaasi ka hadlay maamulaha dugsiga sare ee Candlelight mudane Mukhtaar Muuse Xirsi isagoo ka warbixiyay marxaladaha kala duwan ee uu soo maray dugsigani waxana uu yiri taasi looma asaasin profit iyo faa'iido iyo in bulshada lacag laga urursado waxa loo asaasay in loogu adeego ama kor loo qaado waxbarashada gobolka Togdheer gaar ahaan degmada Burco almuuniyamka alxanka cunto karinta xinasaarka iyo farsamooyinka kale lagu shaqeysto sida daraadeed xagga farsamada xataa markana hadii kambaniyada sida heeko kale iyo kuwa kale electricity bixiya aytaan dadka ka shaqeeya waxay ka baxeen badidoodu ka dhalay sidoo kale wakaalada biyaha Burco dadka biyaha ka shaqeeya qudhoodu badidoodu waxay ka baxeen dugsiga ka dhalay waxaan ku sameeynay isbedel laba galaas oo kala soocan ka dhignay oo habluuna fasal gaar ay dhiganayaan inabaduna ay fasal gaar dhiganayaan ardaygeena iskuulka ugu sareeya waxa uu noqonayaa kaalinta 11aad sababtoo ardayga tobtiga ugu sareeya waxa uu keenay 826 halka ardayga kaalinta ugu sareeyana uu keenay 858 iskuulka waxa loo furay library arday kasto kamida ardayda ama fasalada dugsigana waxaan u siinay xiisad uu yeelan doono dhanka mas'uuliyiinta jaamacadda Alpha New Generation iyo jaamacadda Burco ayaa bogaadiyay maamulka iyo macallimiinta dugsiga Candlelight dadaalka iyo juhdiga ay galiyeen ardayda waxaana kamid ah hadaladoodii sida tan waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay daayirtii kala duwaneed ee halkan ku soo bandhigtay waxbarashada kala duwan kale wax akhriska waxa uu taqaanaan malaha inaad buug iyo warqad qaadataan imika mobiladiina yar smartphone-ka ku shuban kartaan casharada haddaad eegto kambaniyada waaweyn bangiyada private-ka loo leeyahay xarumaha dawladaha meel walba dadka ka shaqeeya ee ugu horeeya waa ardayda iskuulkan ka dhaleed ka baxday u arkay iskuulkan inuu yahay iskuul si wacan caruurta wax ugu dhiga runtii waxa weeyaan waa waqtigiina ba haysataan maalin kaliya ama habeen kaliya ama waxaan ku leeyahay wiil kaliya oo xabsaanto iskuulka waxaad ogaataan inuu ka go'an yahay cimrigiina gudoomiyaha hay'adda Candlelight Xasan Cabdullaahi Daacad iyo mas'uul ka socday wasaaradda waxbarashada ayaa iyaguna halkaasi ka hadlay waxana yiraahdeen markii iskuulkan la sameeyay ee la dhisayay dadkii dhisayay waa la yaabay marka wadada la soo maro dadku markay arkaan iskuul halkan dhismaha ka socday seeskiya waxa markii la waday waxa la weydiinayay maxaa halkan ka damacsantii marka la yiraahdo waa iskuul way la yaabanaayeen waxay lahayn iskuul malaa ma wadaan wax kala wadaan lama jirin waxbarasho ma jirin dareen xataa qofku waxbarasho iyo waxa uu kaga fakiro alxamdulilaahi rabbil caalamiin way naga maanta midhii waqtiga maanta halka aynu ku goosanayno marka laga soo bilaabo waqtiga ilaa imika sidii maamulihii halkan iga horeeyay uu sheegay 15 kooxood ayaa ka baxay dugsiga formal education waxa aad iyo aad u marxaati furteen inuu ahaa dugsi soo saaray mujtamac badan dadkii ka soo baxay waxay noqdeen dad bulshada iyo qarannimada Soomaaliland guud ahaan intaba anfacay waxay lahaayeen dhaqaatiir waxay lahaayeen agaasimayaal waxay lahaayeen gudoomiyayaal jaamacadeed waxay noqdeen dad xitaa baayac mushtarka ugu dambeyntii waxa halkaasi abaalmarino kala duwan lagu guddoonsiiyay ardayda wax ka barata Candlelight School dugsiga Candlelight ee magaalada Burco ayaa kamid ah dugsiyada ugu tayada iyo aqoonta fiican ee ku yaala gobolka Togdheer waxaana uu dugsigu soo saaraa sanad kastaba arday ka dhisan aqoonta kaalmaha horena ka gashay imtixaanaadka qaranka Soomaaliland Cabdiraxmaan Ciise wararka telefishinka caalamiga Somali Cable Burco